السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الكسو دواذا قيب كلي وكمد قيبها تاريخ ذا هل كان إذن كل وذاقو إنك هاد بدنا موضوع قار كسو قادرنا أنيك كفر حسن سيدا أدمر والبول السعوتان كنالك قاموس كسو دواذا صاحبي الموضوع مانت أنكو إيجي دونو لبا الريموت شيغي مركي نولا الله نحريستي علي مهدي محمد مدحويني هوري الصومالية إن أي أهايين كوي كقوم من جري ugu murugada badnaa الله naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya ganacsade siyaasi ahaa Ali Mahdi Maxamed waxa uu 10kii bishii March sanadkii aan ka soo gudubnay ee 2021 ku geeriyooday caasimadda waddanka Kenya ee Nairobi isagoo oo 12kii bishaasi maalinimo Jimco ahayd lagu aasay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya Ali Mahdi Maxamed oo bilowgay sanadaha 90-maadkii gaar ahaan markii dagaalada sokeeye ka qarxeen dalka aad loo bartay kana mid ahaa hogaamiye kooxeedyadii waqtigaasi soo baxay waxa lagu xasuustaa arrimo badan oo saameyn weyn ku lahaa xaaladii dalka Soomaaliya sanadkii 1991 ayuu Ali Mahdi Maxamed noqday madaxweynihii Soomaaliya kadib markii xilka laga tuuray madaxweyne Maxamed Siyaad Barre oo 22 sano xukumayay dalka waxa uu haddaba Ali Mahdi Maxamed dalka madaxweyne ka noqday xilli aad u adkaa oo uu dalka ka socday dagaal sokeeye oo qadhaari mar uu dabayaaqadii sanadkii 2020 waraysi gaar ah siinayay telefishinka Somali Cable ayaa waxa wax laga weydiiyay arrimihii ugu adkaa ee intii uu xukunka hayay soo maray maadaama dalku waqtiyadaasi xaalad qallafsan oo taariikhda gashay soo maray waxa si gaar ah wax looga weydiiyay bil in ay jiraan go'aamo uu qaatay intii uu madaxweynaha ahaa ama dagaalka jabhadaha qayb ka hogaaminayay oo uu imika ka qoomamaynayo marxuumku waxa uu sheegay maalintaasi in uu laba arrimood aad uga qoomamayn jiray madaxweynihii hore ee Soomaaliya marxuum Ali Mahdi Maxamed waxa uu farta ku fiiqay in ay jiraan laba arrimood oo uu mar walba ka qoomameeya isaga oo si dareen leh uga hadlay xaaladaasi waxa uu sheegay in labadaasi go'aan ay ahaayeen kuwa aan mudnayn in la qaato xilligaasi maadaama ay saameyn taban oo xun ku yeesheen nolosha shacabka Soomaaliyeed laba qodob ayaa jirta waxaan ka shalaayo oo aan aad uga qoomameeyo qodob waa mid uu qaatay ra'iisul wasaarahaygii waqtigaasi Umar Arti Qaalib oo uu ku dhawaaqay aniguna aanan ka daba tagin oo ahayd amarkii aanu ku bixinay in ciidamada dawladda Soomaaliya markii ay dawladdu burburtay ay kala tagaan arrintaasi aad baan uga qoomameeyaa waxaanan arkaa in uu ahaa arrin aad u khatar badan sidaas waxa yiri Ali Mahdi oo maalintaasi Allah u naxariistay ka hadlay arrinta koobaad ee uu ka qoomameeyo waxa uu haddaba intaasi ku daray in go'aankaasi ciidamada lagu kala diray uu ahaa mid khaldan oo ay habboonayd in ciidamadu ay sii joogaan ma ahayn in amarkaasi la bixiyo taas waan ka qoomameeyaa ayuu intaasi ku daray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Ali Mahdi Maxamed oo dhanka kala sheegay in uu aad uga qoomameeyo dagaalkii sokeeye ee ka dhacay magaalada Muqdisho dagaalkaasi oo lagu tilmaamo mid ka mid ah dagaalada dadka Soomaaliyeed galeen kuwoodii ugu dhiigga badnaa uguna arxanka darnaa ee dadka iyo dalkaba baabi'iyay Ali Mahdi Maxamed Allah u naxariistay waxa uu sheegay in markii Djibouti lagu soo doortay uu isagu doonayay in uu muddo kooban xilka hayo waxa uu xusay in shirkii Djibouti ee isaga lagu soo doortay xataa aanu ka qayb galin balse ergadii halkaasi ku shirtay ay isaga doorteen isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri waxa Google noogu baaqay madaxweynihii jamhuuriyadda Djibouti Allah u naxariistay Xasan Guuleed Abtidoon halkaas ayaa la isugu tagay aniguna kama qayb galin xamar ayaan joogay kadib halkaas ayaa la igu soo doortay 2 sano ayuu yiri marxuum Ali Mahdi Maxamed mar uu ka hadlayay labadan arrimood ee walaaca ku hayay noloshiisa ka hor intii aanu geeriyoon waxa uu intaasi ku daray in qorshihiisu ahaa in doorasho muddo sanad gudihii ah uu dalka ka hirgeliyo 2 sano haddii aniga la igu simi lahaa qorshahaygu waxa uu ahaa
in muddo 1 sano ah gudaheed in aan doorasho sameeyo xukunkana aan wareejiyo oo aanan mar dambe isa soo sharixin. sidaas ayuu yidhi Cali Mahdi. waxaanu cadeeyay in dagaalka Muqdisho ka qarxay ee ay waqtigaasi ku kala qaybsantay jabhaddii USC uu ahaa arrinka labaad ee noloshiisa intii dambe uu aadka uga qoomamayn jiray. Cali Mahdi Maxamed waxa uu xili lagu qiyaaso sanadkii 1938 ilaa 39 ku dhashay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ee dalka Soomaaliya. waxbarashadiisii asaasiga ahayd waxa uu ku qaatay magaalada Muqdisho isagoo markii dambena waxbarasho dheeraad ah u tagay dalka Masar. intii ay jirtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxa uu xubin mar ka noqday aqalka baarlamaanka. markii ay burburtay dawladdii dhexe sanadkii 1991 ayuu noqday madaxweynaha Soomaaliya. xilkaas waxa uu hayay intii u dhaxaysay 26 bishii January sanadkii 1991 ilaa 3 January sanadkii 1997. mar kale ayaa heshiis ka dhacay magaalada Qaahira loogu cusboonaysiiyay xilka, waxaana sanadkii 2000 bedelay Cabdulqaasim Salaad Xasan. Cali Mahdi waxa uu xukunka qabsaday kadib markii isbahaysi mucaarad ah oo hubaysan oo uu kamid ahaa ururkii hubaysnaa ee USC ay xilka ka tuureen madaxweynihii muddada dheer ka talinayay Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre. hase yeeshee Cali Mahdi uma aanay suurto gelin in uu nidaamkiisa wada gaarsiiyo qaybo kale oo dalka ah xilli ay Soomaaliya lagu hala gashay dagaalo sokeeye oo baahsan. intii uu madaxweynaha ahaa waxaa jiray dagaalo loo yaqaano 4 bilood leh oo dhex maray ciidamadiisii iyo xoogagii daacadda u ahaa Allaha u naxariistee General Maxamed Faarax Ciidid. dagaalkaasi oo noqday mid riiq xun reebay oo aad saameyn ugu yeeshay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda. saaxiibayaal, mowduucaasina maanta halkaas haynoo joogo. inta aynu ku kulmi doono mowduuc kan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.